maanta waa 28 bishii 7 sanadka 2013 tirsiga Itoobiya ku beegan 24 bishii 8 1442 taariikhda hijriga ku beegan 6 bishii abriil sanadka 2021 meeshaan fadhino waa fadhiga Suldaan Maxamed Xasan Gabaaba oo ah fadhiga golaha guurtada dhaqanka Garre meesha talada ay ku gooyaan way sababta halkaan isku nimin inaan taageero iyo garabgalba u sameeyno shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Sito ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida oo dhibaatooyin ballaaran oo gumaad iyo dil ah in muddo ku socotay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Daawa aan afkooda ku hadlayaa waxaan taageerayaa dadka Soomaaliyeed oo degan degmooyinka Cadeyto Cundhufo Gadameyto ama Garbaciise oo dhammaantooda ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida oo shacabka Soomaaliyeed dega dhibaatooyin ballaaran lagu hayo ayaanu ka dhiidhinaynaa waxa weeye dhulka haddaan soo tilmaamay degmooyinkaas iyo shacabka degaba waxa ay ka mid yihiin dawlad deegaanka Soomaalida sida darteed dadka iyaga oo markasta guryahooda lagu gumaadayo oo hantidooda la dhacayo oo la iska yaganayo shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan dawlad deegaanka Soomaalida iyo dawlad deegaanka Soomaalida intaba waxaan u soo jeedinaynaa walaalaha iyagii gobolka City degan oo dhibaatooyinka noocaas lagu hayo in lagu garab galo in hooyo hilba in lagu garab galo ayaanu soo jeedinaynaa dhinaca kale haddaan nahay shucuubta Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Daawa waxaanu taageersanahay nabad ku wada noolaanshaha iyo deriska dadyooga iyo shucuubaha kala duwan ee Itoobiyaanka ah waxaanu taageeraynaa nabadgelyadii iyo nabad ku wada noolaashihii labada deegaan oo deris ah oo in badan dhibaatooyin ka dhaxeeyay iyo Oromada iyo Soomaalida oo maanta xasiloonayaan aad u taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa waxaanu adkeenaynaa inaan si nabad ku wada noolaano walaalaha iyagii Oromada aan derisnahay si lamida waxaanu rajaynaynaa walaalaha iyagii Cafarta oo runtii dawlad deegaanka Soomaalida la deriska ayagina ay fikirkaas ay qaataan dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ku hayaan inay joojiyaan dhulkii dadkii Soomaaliyeed inay gacanta ka qaadaan xaqii dadka Soomaaliyeedna inay faraha ka qaadaan nabad ku wada noolashahana inay soo celiyaan ayaan xaqoodan u soo jeedinaya dawladda dhexe federaalka iyo dawlad deegaanka Soomaalida iyo dawlad deegaanka Cafarta intuba waxaan u soo jeedinaynaa inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida labada deegaan sidii ay ku iman lahayd aad iyo aad baan u mahadsantihiin marxam waxaan salaamayaa suldaanka iyo goobta guurtiisa iyo dhammaan culamaa diinka odayaasha dhalinyarada iyo qaybta maxaan ku raahdaa meediada gacanta noogu hayso aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib arrinta hadda ka socota gobolka City qowmiyadda Cafarta ay ku hayaan deegaanka Soomaalida annagu marna ma taageersanin in Soomaalida dhibaato loo geysto ama la weeraro ama la dilo la dhaco dhulkeedana la qaato waxa annaga maqaal nooga saddex hadii degmo marka qabale marka hore la bixiyay mooyaan kuwa kale in lagu daray hadda doorashada inay galaynin saddexdii qabale hore inay Soomaalida gacanteed u soo gasho maadaama dhul Soomaalida ay tahay gobolka City ay ka tirsan tahay shantii kale macna sideedii kale hadda la sheegayana ayadana macna gobolkaas loogu soo celiyo macna ka shacab ahaan ka gobol ahaan ka odayaal ahaan ka dhaqan ahaan waxaan qabnaa in gacanta Soomaalida gobolka City loogu soo celiyo degmo tuulooyinkaas kuwa doorashada laga gooyay la sheegay iyo kuwa hore loo gooyayba waxa kale oo ka soo horjeednaa weerarka qaawana oo maalin kasta ay qaadayso qowmiyadda Cafarta weerarka in ay joojiso bilaa shuruud la'aan haddii ay joojin weydo annagana ka Soomaali ahaan ka gobol ahaan ma taageerayno waxaanu taageeraynaa dhibaatada shacabka loo geystay inaan ka hortagno wax allaal waxay nagu qaadataa hadday hoo tahay hadday hiil tahay inaan taageerno ayaan maaragtay baaq ahaan aan ka bixinayna baaq aan bixinayno way baaqa kalena dawladdeena deegaanka iyo dawladda federaalkaba inay arintaas macna dhex galaan oo ay joojiyaan nabadda meesha ka soo aslaxiyaan taana waan taageeraynaa
haddii taa la waayo kolley qof Soomaali ah meesha naftiisa ku baxdo oo gurigiisu ku gubto annagan teennana way ku bixi nafteennana way ku bixi taasna waan maaragtay soo jeedinaynaa taageeraan u qabno way taageeraan u qabneed marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan u soo jeedinaynaa arrinkan inay ka dhiidhiyaan san nabaddu ay meesha ka soo baxdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وسلاما بوجه الكريم وعلى صحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات اللهم اجمع لنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم